saraakiisha amisom iyo waliba kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta magaalada Muqdisho ka daafuray xarunta isuduwidda howlgallada wadajirka ah ee ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab. Xaruntan ayaa laga hirgeliyay gudaha xerada xalan ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta amisom, waxaana daafurkan munaasabadani ka qayb galay ku-xigeenka amisom ee qaabilsan howlgallada iyo waliba qorshayaasha Major General William Kitsau iyo waliba taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage. Xaruntan ayaa noqon doonta xarunta ugu weyn ee laga qorsheyn doono howlgallada ka socda gobolada dalka ee lagula dagaalamayo xubnaha Al-Shabaab, waxaana xaruntan si wadajir ah u maamulaya saraakiisha amisom iyo waliba kuwa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Oduwa Yusuf Raage oo ka hadlay daafurka xaruntani ayaa sheegay in wax badan ay u fududeyn doonto xarunta ayna ka haqabtiri doonto baahiyo badan ay qabaan. ay ku xiran tahay dabcan rabitaanada talisyada inay mideysnaadaan soona gaaraan sectoriskuna ay u sii gudbiyaan si hawshaas ay u noqoto mid mideysan oo socota waqtigeena noogu fusho. runtii waxaan dhihi karnaa waa la soo daahnay, laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala anagoo ka faa'iideysanayna waqtigii dheeray ee aan soo wada shaqaynaynay iyo waxyaabihii aan ka soo baranay ee casharka noo ahaa in tan ay noo fududay doonto waxaan hor yaalla inaan si dhab u wajahno. aadan cali axmed VOCV magaalada Muqdisho.